kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa kaaha bulshada fadlan subscribe oo saar laagintana ha ka ilaabin waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno mowduuc ku saabsan sida haweenka Soomaalida ama habka ay Soomaalida u dhaqmaan haweenka. Bash Khan oo ah nin u dhashay dalka Afghanistan isla markaana ah nin xirfadyahan ah ayaa waxa uu yiri haddii aad rabto inaad ogaato ilbaxnimo ama dhaqan ama bulsho ay leedahay waxaa ku fahmi kartaa ama ka arki kartaa hadba sida ay u dhaqmaan haweenka. Bulshooyinka adduunka muddo dheer ayay waxay la dagaalamayeen sidii haweenka dalalkooda ay u heli lahaayeen xuquuq rasmi ah oo ah xuquuqda bini'aadanimo oo Allah subxaanahu wa ta'ala siiyay isla markaana ay noqdaan kuwa dhibaatooyinka lagu haayo laga hortago kuwaasoo ay sabab u yihiin arrimaha la xiriira dhaqamada kala duwan ee adduunka iyo dadyo kala duwan ee kala diinta ah. waxaa jira waxa loo yaqaan patriarchal society oo ah muddo dheer dhaqan soo jira oo ah in ragga inta badan la sareysiiyo ama la siiyo mudnaanta koowaad waxaana sabab u ah dhaqamadii xilligaas jiray oo ku saabsanaa xoogga ama muruqa oo inta badan ay ragga ka awood sareeyaan dhanka muruqa marka loo fiiriyo haweenka. mar uu ka hadlayay Sheekh Umar Faaruq Allah naxariisto oo ahaa wadaad caalim ah oo Soomaalida aad u taqaano ayaa waxa uu sheegay gabadha iyo wiilka marka ay dhashaan marka ugu horeyso waxay la kulmaan ama ay dhibaato ugu horeyso la bilowsataa marka ay dhashaan. waxa uu yiri wiilka marka uu dhasho isla markii waa lagu farxaa oo umulisada ayaa Allah seeso iyo inta ku dhow qofka ugu horeeya canugaasi arko ama waxa uu yahay genderka ama nooca jinsiga uu yahay canugaas wiil iyo gabar waxa ogaato waa umulisada. haddii ay gabar dhasho umulisada way aamustaa dhinacyada ay fiirisaa iyadoo hadal uusan kasoo bixinin waxaana markaas kadib la dhahaa sidee wax u jiraa maxaa dhashay markaas iyadoo markaasi waasiraysa oo waxaas ku hayso oo isbaarkii isaga aan ku faraxsanayn waxay leedahay iyada ayaa is dhashay. laakiin markuu wiil dhasho way faraxdaa qofka ugu horeeya Allah sabab iyada. Sheekh Umar Faaruq oo arrimahaasi ka hadlayna nala dhageysta. gabdhuhu markay innaga inoo dhashaan Soomaalida wax inay gabar tahay ogaadaan waxa ugu horeeya umulisada. qofkan ay gacmaheeda ku soo dhacday ka soo qaaday qofkan dhalaya hadday aragtay gabar inay tahay ma sheegi karto madaxay laablaabi waa la sugayaa geedka fooda loogu haya ilaahay ma kala keenay waa kala tin maxay dhashay waxay dhashay iyadaa is dhashay waxna ma dhalin waxaa mudaaharaadka bilowday umulisadii sheegi maysa kuma dhici karto xaggaasaa la iska dhigaya dan lagama le bal wiil muu noqdo qooro xun lagu arko iyada ha alalaaste afka sheegid iyo su-aalba iyadoon sugin umulisadiiba alalaasaysa korkeeda xabadaa laga ridaayay. naagtana wiil bay dhashay wan baa loo qalayaa barida laga siinayo saa wiil bay dhashay ilmihii waa kuusteen wiilka dugsi baa la geynaya macallin baa loo geynaya gabartana waa lagu xamalanaya. hadday jiifaan oo yaryar yihiin wiilka oohin looma ogola kolkuu wiiq yidhaahda waa lala boodaya waa la dhunkanayo. gabadha oohin wax ka dhibi mayse meelo badana u banbanaan oy ka duleeshaaye iska dhaafaa laleeyahay maanta oo dhan bay gedgadoomaysaa oy kaayida ku lamaysaa la qaadi maha wiilka waa dibiraya meeluu ka neefsado male waa isku mid isku inaa ka duleesha saddexaa ka duleesha kiiba idan taas waa lagu kala bedelay. hadduu kustay wiilkii dugsiyaa la geeyo oo qur-aankaa la baray gabarta dugsi la bari ma isku si loolama hadlo wiilka alla ku qaad lama dhihi karo rag lama habaaraa lagu leeyahy iyadana si iyadoo ku weynaanaysa hadal xumada soo qaad alaabta dhul ay ku dili waa kusteenoo waa tabar galeen wiilkii gabaraa loo soo gaday iyada nin labaadaa laga gaday aniga inta yareedaan soo baabi'iyey adna inteeda kale israaci inaa xoolo laga qaadana lagu daraa walxaqiiqa runta gabar iyo wiil gabartaa ka fiican. awalan waxaad ka gaa inay ka fiican tahay qur-aanka markuu awlaada ka hadlaayey lilaahi mulku samaawaati waalardi yakhluqu maa yashaau yahabu liman yashaau inaasan ilaahiy gabdhaha laga bilaabo wayahabu liman yashaau dukuura waa dambeeyaan wiilasha aw yuzawijuhum dukraanan wa inaasan wayajcalu maa yashaau xaqiima. gabar hadday kuu dhalatay kuu joogto reerka anfici wiil muxuu tara lugooyo miiran
haddii dugsigii la wada sidoo kale waxaa jira in markay gabadhaha ama xilliga baadiyihii Soomaaliya dhaqankooda markay gabadhii wiilka dhashaan markaasi laba qaab loo kala wajihi jiray oo aad arkayso in gabadhana si gaar ah loo amaano halka wiilkana si gaar ah loo amaanayo xildhibaanad ka tirsan dowladda Soomaaliya ama federaalka dowladda Soomaaliya oo lagu magacaabo xildhibaan Sacdiyo ayaa waxay nooga warbixinaysaa hadba sida loola dhaqmo markay gabadh dhalato waxa ay kala kulanto bulshada ay markaasi ay u dhalatay oo ay u horeyso hooyada sidoo kale markuu wiilka dhashana iyadana sidoo kale way noo sheegaysaa iyadoo markaasi gabadhana la liidayo oo lagu tilmaamayo wax laga naxo aan wanaagsaneyn in dhalato isla markaana ee la dhalatay dhibaato halka wiilkana uu la dhashay farxad iyo qurux uu la dhashay oo markaasi reerka wax badan kusoo kordhinaya waxaan rabaana marka hal tusaale yar inaan usoo qaato sababta aan dumarka loo ogolayn gabadha horta markay dhalato habeenkay dhalato iyo wiilka habeenku dhasho meesha ku kala fadhisan yihiin waa halka gabadha markay dhalato waxa la dhahaa hooyadii laftigeedii baa qabanaysa waxay leedahay dhibay gabar waa dhibaya dhibteeda iyo dhiga xirkeeda dhibaat soo doonadkeeda ninkii bay dhibayadeeda bal fiiri waa maalinkaan dhashay inaan welcome ahayn hooyadii iyo aabihiiba agtooda waa welcome kabanin madiiniba maya waa dhaqan wiilkiina waxay hooyada leedahay markay qabato waxay leedahay markaa dhalatoo dhawaaqday dhediya dhaxan ba iga duushay oo dhulkaa ii kala iftiimay dhulwaayaa iga horooray horta labada meeshay ku kala fadhisan yihiin hooyadii baaba kala fadhishayba oo dhashay aabbaha wiilka laba neef uu ka qalaa gabadha waxaa laga yaabaa fiiri in la dhaho ma balaayada iyadaa is dhashay maxaa hadda la sameeya in laguba murmo in xitaa qada laga qadeeyo walaalayaal runta aan isbeers fiirino iyadaa saliid gadaysa dagaal baa dhacay waana la qaxiyay waligeena gabar ku wadataani ma arkin naan qori saaran ma arkin mid beela kooxeeda ma arkin ninkii asaa i qaxiyey asaa ilmo dhalay iiga tegay asagii baa saliid u gadayaa ilmo kaluu sii dhalin intaa wiil oo qurux badan oo dhexda xiran oo wada gabdhaha sidaa weyn wallaahi bilaahi inta aabba soo koriyay waa yarta way qarinayaan laakiin way idinku yar tahay inta aabba koriyey nimanka raallaha uma dhahay sababtaa waa wada loo siris haddaan ahayn maxaa 30 sano aniga intaa ay soo taag waddanka yaga Soomaaliya wax politician ah oo looga ogol yahay oo gabar ma jirto gabar wax siyaasad looga ogol yahay haba yaraatee ma jirto sababtana ay idin sheego horta marka ugu horeysa ani markaan soo baxayay reeraha iyaga kulli weer cad baa u xirnaay waxa la naagnima matash odaygiina wuxuu lahaa naagnima matash qabiilku waa qaracan gabadha lagu soo qoro isagoo qaracan ayaa lagu soo xiray ani waxaan ogahay 30% gaala inay keentay fikir waxay ahayd lagu ansixiyay xalane qoraalkiina aniga waa haya sanka laga galiyay sanka 68 gabdhood waxa la yiri aniga state-ka ugu gabdha nacab baan ka imaaday Puntland naag baa deerkan allergy waa ku kacaba wixii wanaagsan aanu qaadano laakiin dad la xaqirayo ya haddii qaanuun laga dhigo xaqiraadii baa qaanuun laga dhigay dumarkii waanu ma aragtay baabi'inay waxaanu nidhi dumar ma jiro shaqo looma dhiibto shaqo looma dhiibto marka inaanu isku noqonno wey bani'aadamnimadanadii baa shaki ku jira aniga sida ila tahay Professor Cabdi Saciid oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa mar uu ka hadlayay arrimaha la xiriira haweenka iyo mujtamacaadka markaas muslimiinta qaabka u dhaqmaan ama fikirka ama fahamka qaldan ee dadka muslimiinta ka haysta haweenka ay waxa uu sheegay inay ka mid yihiin markaasi ama oo qayb ka mid ah laga keenay dhaqamadii carabtii hore ee gaar ahaan Qurayshtii iyo Abu Sufyaan isagoo markaas sheegaya inay ahayd arrin markaasi dhaqamadaasi carabta ay lahaayeen qaarkood diinta lagu soo dhaxdaray ama si qaldan fahamkaas loo qaatay marka culimada islaamku waxay yiraahdaan أينما كان العدل فتم شرع الله أو أينما وجدت المصلحة فتم شرع الله عدالة أيها هالبيجو هالدينته وحكستو عدالة خلاف سن سكستو دين لو قد الدين من نقول كران مركا إن برشلة قريب كم يضل الظلميو دينته ماشي كسو قليسو ولا كران كران وحكست مركا في شيء يعني هالبيجي بقى مارتي وحنا نقول عدالة waxaan leeyahay maanta مسلمين تو
إسلام كأي هيستان إسلام كدينتي كهالمين هو فكرة إسلام كإيمانته هيستان مسلمينتو وحلي هذا هو فكرة أبو سفيان يقريش كبرتين أنت النبي محمد إسلام كبرتين يبغى عيسى إن كبضن وحي كبرتين أبو سفيان يقريش رقم مكة رقم مذكر أيها وحلقة دقيقة إنه يهي دين هل كاسنا وحكتمت عقلية بلشو أو حل النوليد إلا يرى هذا هو دين وما ظهر أنها هيستان وداد أزاريا وقال أنت الله نحن استهدى وحال ليه جري عبد الحليم محمد أبو الشقة باوحوا قريبوك وحال يرى هذا تحرير المرأة في عصر الرسالة وأبوك لحم جلده ورجي أيسكو فعها هاي أيسكو حبرشة صاحبها هاي إنك اللي يرى هذا الشيخ يوسف القرضاوي الشيخ يوسف القرضاوي يا محمد الغزالي والله بدأ اللي بدأوا رجعوا علماء مارت عالم الإسلامي رجع مارت مجا كله بابوك صحيح اسمه المقدمة دير حلو صباح وحير هذين بوق لقى قري دمر أو إسلام عرفت إسلام لقى قري بوقي وفعنا هو وبوق لحمة جلده أرماها الدمر كإسلام كوجا هاللي تلك السعودي وحلي بوق اللي مسوا قلنا كرم ممنوع هو بوقان تحرير المرأة في عصر بركة كتابك هذا كنا قدوا حويه كتابك وحكم بيسكريسية هاي وقرآنك هي صحيحينك صحيح البخاري صحيح مسلم وحو يري إسلامك وحو كقبه ولما كتابك ربان كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم وحي إسلام كما تدمر كثير هذين طهرين الأوجاد إستيقظ كل يسيف لبود بوها مركي هره أصلا الربيع يرى وقبله كلها لو جوجان ومرت يحمي يستيقظ وحو يروح الرأي الأوجاد نصوص الصحراء إنهم صوب النبي لكن نصوص مركو نحجر يبقى وحو أوجاد وحو وركي هره ما يسنا وحكدهم بقصة بحضي بوقي لحى مجرد بقري وحياة بدن بو مرت وكسب بندقي تلك السعودي وحال يربوك اللي بس وقلين كروا ممنوع وحال يروح صحيح البخاري صحيح مسلم إن لو دي السعودي قال سيكون عضي السعودي وحال مرة بوك محكوتي ده سبوك قال سلام ده أساس محاول صحيح البخاري صحيح مسلم بوك هالليا بوك صحيح مسلم وحاول لكن عادات كي يتقامر قافك وهاللي فواحد تاي عادات كي تقاليد يدي إسلام بيولدك يا بوك ما يدهن عادات كي تقاليد يدي بوك أنا لدك ياها عادات كذا تقاليد هذا محاكم ده بوك وحكو قري إن مسألة اللي يرى هذا النقاب كأما مرت وجهه قبلها إلا أستره إن سندين تشقق لهين واحد قال الله قدر يعتها نصوص قبله هنا وجهه قدر إنه عوراء هين علماء السعودية حين ما يتنقل كي يوكهر مانيا جاحد من كلا ديه جري هذا بس كحب ضنبوها بوحو يري أرن ما إنه ما نجره قف أرنيا دمر كفي عن رجع أما كلي ترجع لكن waxaan aragnaa inay badan yihiin ragga jecel inay liidaan dumarka xaqoodana doodsiiyaan waxaana la yaabaa wiirintaada sida waxaana la yaabaa ninka aabihiis amaani waayay isagoon hooyadiis liidin dumarka dulmiya dumarka liida haweenka tifirdu waxa dhigta inay sax ahayn muslimiintu madaxa kale dumarka kama liidaan inta madaxa kale qaban bay qabaan laakiin ummadaha kale inta badan hal shay ku guuleystaan baa wali muslimiintu ku guuleysan ummadaha kale inay diintoodii iyo dhaqankoodii ay kala duwaan oo ay yiraahdaan aysan diintoodii u saarin dhaqankoodii aqliga waxaan la yaabaa buu yiraahdaa aqliga ninka aabihiis amaani waayay asagoon hooyadiis liidin marka maalintii amaanta aabaha ay kugu bixisay in hooyada liido mushkilad ku jirta marka maantana dadka yaani noocaas oo jecel maartay dumarka iyo magaciisiga inay liidaan waa badan yihiin sidoo kale waxaa jiro wax loo yaqaan misogyny oo ah markaasi dad ama rag ama nin waxa dheh oo aad markaasi ugu beeran yahay naceebka haweenka iyagoo markaasi taasna ay awood badan kasii helayaan ama kasii shaqo qaataan hadba dhaqanka markaas uu qofka la joogo tusaale ahaan dhaqankeena Soomaaliyeed markaa taaganahay waxaa arkaysaa in haweenka Soomaaliyeed aad loogu dhibaateeyo meel kasto ama qayb kasto bulshada ka mid ah dhanka suugaan markaa fiiriso iyo waxaa laga sameystaa maamahyo la rabo in markaasi maskaxdooda lagu baabiyo waxaa arkaysaa in haweenka loo sameysay maamahyo fara badan isla markaa waxaa arkaysaa qaar ka mid fanaaniinta laftigooda oo abwaaniin raga ay u sameeyeen hadalladaasi suugaanta Soomaalida ama dhaqanka Soomaalida laga soo minguuriyey oo markaas gabadha iyadoo isliideyso ee isla markaana qarsan tahay beentii lagu celiyey ee markaasi ragga hore ee sameeyeen ay aaminsan tahay waxaana ka mid ah Xaliimo Khaliif Magool oo markaasi hees ka mid heesaheeda ay ku leedahay sidatan على
haddaba heestaasi aan dhegaysanay ma ahan hees markaas gabar samaysay oo fanaaniintii soomaalida ama fankii soomaalida markaad dib u raacdo kooxdii waaberi iyo qaybihii kala duwanaa ma jirin hal gabar oo abwaanad ah oo miraha culan jirtay sidaa darteeda markaa fiirino ama aad joogno dalka soomaaliya haweenka waxay ku nool yihiin ama ay kusoo noolaayeen duni ama dal uu nin samaystay oo dareenkooda iyo habsugaantooda iyo hadalkooda wax dhan waxaa ka tarjumaya rag taas oo ah mid aan suuragal ahayn maxaa yeelay dareen qof kale ama dareen haween oo nin ragga inuu ka turjumo waa loogu fiican yahay ama markaasi maxaa yeelay waxaa la rabaa waxaan ama sugaanta sideedaba markuu ragga ay hadlayaan waxaa jira xifaaltan oo inta badan dhaqanka u ceyrisiiyo taasoo ah markaas in lagu liido dumarka isla markaana lagu saraysiiyo ragga oo mudnaanta koowaad la siiyo waana halka sugaanta inta badan markaa fiirso maamaahyada iyo gabayada iyo heesaha oo ay ka mid yahay heestii dhawaan aan dhegeysanay magool ay ka mid ahaayeen markaas waxyaabaha lagu liido haweenka oo isla markaana haweenka wasiirkii hore ee warfaafinta dalka jarmalka ayaa waxa uu sheegay beenta ku celceli been weyn sheeg ku celceli qofka marka dambe bulshada way qaadanaysaa beentaasi waxaan arkaysaa isla beentii oo kugu soo laabato adiga laftigaada oo qaadanaysa inay tahay wax xaqiiq ah oo markaasi aaminaysaa taasna waxaan ka arki karnaa dhaqankii soomaaliyeed oo haweenka aad markaasi si liid ula hadlayay inayo hawbara dumar gadi laguma guuro guya laguma fuushe gullihii abuurta gasiray xaqoodo gurtidii ka reebe cabdiqawi oo ah garsoore soomaaliyeed isla markaana ka mid ah ama hore usoo noqday guddoomiyihii maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa waxa uu bulshada soomaaliyeed weydiinayaa su-aalahani ma dhici kartaa inaan aragno ummadda soomaaliyeed oo si buuxda u aqoonsata dowrka udubdhexaadka ee haweenka soomaaliyeed uga jiraan bulshada oo xuquuqda gabdhaha dhowra ee ilaaliya oo xukunka dalka iyo maamulka heer kasta ee bulshada ka qaybgeliya sharaftooda iyo xurmadoodana u dhammaystira dowrka haweenka la-aantiis unugga bulshada ee reerka ah wuxuu u kala dhici lahaa si aan caqliga gelayn oo ka liidata 100 jeer siduu maantay u kala dhacay su-aalahaas iyo kuwo ka badanba waxay meel u yaalliin ummadda soomaalida waxgaradkooda aqoon-yahankooda rag iyo haweenkooda hogaamiyeyaashooda waxaana halka aan ugu soo qaaday maanta idinkaana intiina inta joogtaana ugu horeysa intiina maanta inta joogta waxaana halka ugu soo qaaday maantay 11 su-aalood masal ahaan inay noqdaan khariidad waddo roadmap iyo ajanda lagu shaqo galo ee maskaxda maalin kasta lagu hayo maxaa yeelay haddaynaan aragti vision maskaxda ku hayn meelna gaari mayno waa inaynu vision leedahay waa shaqo dadka soomaalida sugaysa intiina halka joogtana saanu yidhi ayaa ugu horeysa inta laga sugaayo mashaakil iyo dhibaatooyin badan ayaa maanta soomaaliya dhex yaala hase yeeshee waxaan aaminsanahay maskaxda iyo caqliga badan haddii lagu jiheeyo mashaakilkaas furfuridooda xallintooda in xal fiican loo helayo oo himilooyinkaas la gaari karo ayaan aaminsanahay isqaybsi iskala qaybsi aan sal lahayn ayaa dadkeenu ku noolyahay hase yeeshee waxaan ku aamin qabaa in lagu dabargoyn karo isdaryeelka iyo isku duubnida lagu yaqaano dadka soomaalidu goortay damcaan inay isdaryeelaan oo isku duubni sameeyaan adkaynta qarannimadooda midnimadooda iyo isku meelka soo jeensigooda oo ay awood dadku u leeyihiin haddii lagu wacyigeliyo marka waxay ila tahay
waxa furaha u ah arrintaasi waxa weeye abaabul iyo wacyigelin dadka iyo waxbarid kuwaasaa fure عادن إري أقوم به أفكو دكتاها إذبتي حشوت كي أبا بساها نولو لا يتين أبا بشاها أيو وأذوكي أي كاسون كماين أغنتيو وحكارة دكوليا haddaba sidee bulshada Soomaaliyeed u badbaadin kartaa u fahmi karnaa awoodda bulshada Soomaaliyeed horumar ma gaari doonto iyadoo qayb ka mid ah bulshada ay liidayso isla markaana bulshada ay ka saarayso wixii talo iyo tusaale ah qaybta hoose noogu reeb janaalkan xukumo subscribe ku dhufo like-tan aan ka hilmaamin nabadgelyo